بسم الله الرحمن الرحيم قبل وحل دوكسي قرنمو waxaana tiriye anigoo ah Abgaan Cabdisalaam Axmed Gabayre daada gabaga waayadan ma tirin tan iyo deyrtii dadku moodiye doqona wax tarin oo dabaadiye dulmiloona qaariin maray diraalaha weli maana daabicin maasooyinkii diiranaa jiray aan daneeyo maanta oo kale daawo leedahay qarannimada duugooday baad keentay daanada qarannimada duugooday waa keenta daanada ee dabadhilifna qaariin maray dabadhilifka goortan arkaan daafac soo galay dalkaygii markii oo burburay lagu dul noolaayay doqon laga adkaa jiray markay ugu dinaahiyeysay daanyeerka iyo yeydii baa duulan soo galay tukaha iyo xunshaduna way iga durduurteene adays dilaya Soomaaliyay laguma doonteene adiga dalkaagii nacoo duuma raadsaday durjoog sideedii haddii uu dabarba meel aado amaad kala didaan oo sidii deera kala yaacdo dulli kama baxaan ruux hadday nabadda diidaan dugsi qarannimaa laga helaa doobi buuxsameeye allahayow wanaag dugsi qarannimaa laga helaa doobi buuxsameeye wanaag la isku doortiyo mas-uul daacadaad heliye qabyaaladda iyo dagaaladuna waa dibudhacayni ka dambeeya weligiin intaad dunida joogtaanba rabbiyow maduuliya nasii geesi daadihiya deegaan barwaaqiya rabbow dirirku noo hooro dowlad wacan eebow nasii degalku naafowye allahayuu mid lagu diirsadoo nabarka daaweysa oo kala dambayn iyo heshiis lagu damaashaado oo daacadda iyo qayrka iyo diinta lagu qaato rabbow noogu deeq adigu daa'im baa tahay ducadayda eebow ka yeel erayaan duugoobin dembi dhaafna eebow nasii daa'im baa tahay qarannimada waxa weeye geed weyn oo wada harsadaan midka ugu sarreeya iyo midka ugu hooseeya kuna noolaadaan farxad iyo gownimo ay ugu noolaadaan haddii aysan jirin qofna kama baxo murugo iyo calaacal kama baxo dad yar oo ku nool boobka iyo marooqsiga iyo burcadnimo mooyaane inta kaloo dhan murugo iyo dhibaato ayay ku jiraan ilaahay dowlad khayr oo cadaalada allahna siiyo Soomaaliyay ha laga wada baryo waxaana deeqa geedka qarannimada inaan wada harsanno oo aan salka laga goynin waxaad moodaa maanta in laamihii midba meel oo la sii aadayo mana ahan qarannimo iyo xoog iyo awood lagu heli maayo isku duubni baa lagu helaa dowlad iyo sharaf adduunkana wuxuu tixgeliyaa shacbiyadda iyo waddanka ballaarkiisa waddankiina haddii aad dhowrtaan yacni daafaha caalamka waxaa la eegaa dowlad kasta adduunka siday u difaacdo xeebaheeda iyo hawadeeda iyo barigeeda siday u difaacdo siday u eegto qarannimada waxaana moodaa qaran wuxuu ku istaagaa labada lugood oo ah amni iyo garsoor ka bacdina halkaas ayuu ka tallaabsadaa maantana unugii koowaad ayaan haynaa Soomaaliyay yaan unuga la burburina hal la sii barbaariyo waxaan leeyahay hal la iska daayo qabyaaladda iyo hebel baa ku wacan iyo hebel baan watay iyo najaclaysiga iyo eexda hal la iska daayo haddaad Soomaalinimo lagu gaari waayo waxba lagu gaari maayo qabiil iyo eex lagu gaari maayo halkaas waxaa ka muuqanaya inaad isku duubni iyo wanaag oo ku jira magaca Soomaaliyeed waa la ogaa meeshuu marayay markay isku duubnaayeen laakiin maanta cid waliba way noo hawooti markaas waxaad fiirisaan bal meesha aan naallo maanta dadkeena qaxootiga ku kala maqan midka leeyahay naga kaxaysta oo meel la geeyay la yahay maxaana baday taas waxaana baday kala daadsanaanta iyo qabiilka iyo qabyaaladda iyo dulliga ayaana baday dagaalada iyo degalka naafoobay oo aan mashaakilka iyo murugta aan lagala baxaynin ma jiro dad isku duuban oo adduunka aan awood lahayn ma jiro adduunka dad awood leh oo yacni kala tagi oo qabyaalad iyo ku kala tagi adduunka sharaf kuma leh Soomaaliyay isku tiirsanaada
midnimada taxgeliya Soomaaliye toosa Soomaaliye israaca